run ahaantiina waxa weeye waxaan aad ugu xumahay wax sumcadeeda hoos u dhigay wax sharafteeda hoos u dhigay dadnimadeeda hoos u dhigay dhammaan inta bulshada ay taqaanay Soomaaliyeedna aysan igu taageereyn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaalkan cusub anigoo MK. Sidaad la socotaan baa xalay waxaynu ka hadalnay arrimo ku saabsan family Soomaaliyeed oo Fahimo iyo Khadar. Fahimo iyo Khadar waxyaabo badan oo dhexmaray ayaan ka sheekeynay, kadibna waxaanu ku niri Khadar xogaan waan dhaliilnay, kadibna waxaanu ka codsanay muuqaal uu soo geliyay bartiisa YouTube-ka inuu ka saaro maadaama ay xogaha sharaf dhac tahay isaguna aysan u fiicneen annagu oo dhalinyarada Soomaaliyeedna aysan inoo fiicneen. sidaa darteed muuqaalkani waa mahadcelin iyo bogaadin iyo soo dhaweyn. waxaan u mahadcelinayaa kun iyo kow jeer Khadar oo run ahaantii nin dhalinyaro ah waxna fahmi kara ahna intaan iga muuqatay nin wax garanaya. xalay dad badan ayaa maaragtay ka soo falceliyay muuqaalkii isaga ahaa waxayna maaragtay dadka tusiyeen inay jecel yihiin qofka markuu ku canaanto sidiisaba qofka uu ku jecel yahay. Soomaaliya oo dhan baa canaanatay, waa laga wada xumaaday, canaantina uu qaatay. kulli bini aadamka way khaldamaan, qof ana khaldamin ma lahan, laakiin waxa ugu fiican uguna khayr badan qofkii khaladkiisa ka soo laabta. qadarna khaladkiisa uu ka soo laabtay, wuxuuna soo sameeyay muuqaal raaligelin ah, muuqaalkiina uu ka saaray uuna qirtay maaragtay inuu khaldamay. khaladkuna dee uu dhacaa, bini aadamku dadku way khaldamaan, malaa'ig lama ahan, cid walba khaldanta. Khadarna waxaan leenahay kun iyo kow jeer aad u mahadsan tahay, waanu ku bogaadinaynaa. insha Allah wanaagga horena uu soo laaban doonaa. marka Khadar raaligelintaasi uu soo duubay, uu soo diray cid kaliya khaas uma ahan, inkastoo aad u raaligeliyay Fahimo haaskiisa. raaligelin fara badanna maaragtay bogaadin iyo khaladkii uu dusha saartay isagoo duuduuban. wax walba oo dhacay labada dhinacba كل خلط هدو يماد مدد سكون عن لو بدنا وخلط وكإيمانية خلط كأدودوان أيو دش صارتي دور كأيو أورتي رجنيم أيو موجي أديك أيو موجي وأنا كوبو قادنينا ما شاء الله يعني لين هاي إن شاء الله تعالى تاسو كلام إني سندي إن رجينينا أدين كان أوقات قفك إنه خلطمي كرو خلط كان أوكسو لابن كرو مركز ده درت بل إلى أركا إن قابك قروح بدن وخضر وقفل علي إن فالعلنتي سومالي ده حالي قابك لولا هاللي قابك مارتي muuqaalkii uu soo geliyay ee laga wada xumaaday looga falceliyay asagana wixii uu ka yiri iyo raaligelintii soo gabagaba yani markaan idin leeyahay waxa weeye wixii xumaan oo naga tagay way naga tageen, wixii nagu dhacay way nagu dhaceen. wax allaale wixii isoo maray nolosheeda qayb kasta ahaa wax uun qoran bay ahaayeen. qoraalka rabbina lama koobi karo, lamana celin karo. waxay igu ahaayeen waxay u dhacay oo qoraal ah. qofku laba jeer inuu ballan qaado ma fiicno. marka aad faraxsan tahay aad u faraxsan tahayna ballan ha qaadin, marka aad u caraysan tahayna ballan ha qaadin. waayo labadaas ballamoodba emotion baa tahay, xaaladaadu ma sugna, maskaxdaaduna waxay ku dhibcaysaa ama sii deynaysaa hawo ka duwan hawadii aad ku jirtay. waa sax. markii aad murugaysan tahay ama arrin ku haysato inaad maaragtay aad falceliso oo wixii ku dhacaad ku falceliso way maaragtay waa laga qurux badan yahay. taasina waxay ku keenaysaa qooma ma hadhowtaa. markii aad u faraxsan tahay inaad ballama qaado waxay ku keenaysaa hadhowto waxaad awoodin inaad dusha iska saarto. marka waa fahantaa filayaa Khadar hadalkiisa macnaha xilli xamaasad iyo waxyaabo kale ay jireen ayaa la hadlay yani. marka raaligelintii ayuu bixinayaa Khadar. sii wadano. marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay khaladkii aniga waan qirtay. waxaan aad iyo aad uga xumaahayna way runtii laba saddex habeen ilaa hadda ma seexan. xaaladan waxay u noqotay xaalad adag. ninka rag aan xaalad adag ugu maraa, laakiin waa laga gudbaa insha Allah, waana ka gudbi doonaa. waxaan uga seexan waayna wax kale maahan. dhammaan bulshada ila soo xiriiraysa khaladkayga la tusay, dhan walba la iga cadeeyay inaan yani wax xun ku tilaabsaday. qofka bini aadamka malaa'ig maahan uu khaldama. waa sax. qofka bini aadamka hadda idin sheegayo malaa'ig maahan, qofka uu khaldama. marka in anagana in hadda kadib yaanan cadaadis iyo culays sii saarin, qofka bini aadamkana pressure yaana gelin. inta la hadli karna waa la hadalnay, isagana khaladkii uu qaatay. dhammaanteen anagana waxaan ka bixinaynaa raaligelinta uu bixiyo kale anigana waan bixinayaa. Khadar maaragtay waan dhalinyaro isku meel ayaan ka joognaa bulshada maadaama aan dhalinyaro wadanahay. marka raaligelinta uu bixiyay anigana waan bixinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed wixii khalad oo xagga ka yimid ha laga raali noqdo. Khadarna khaladkiisa waa qaatay kun iyo kow jeer.
والله mana iga ahayn xumay waxaana yacni codadkii aan soo dhigayna xumaan kama wadin waxaan rabay bal sida aad inaad ogaataan ama aad aragtaan sida ani walaashay xaalkeenu yahay aan u xiriirno qorshayaasheen u jeexan yihiin aan isugu wanaagsannahay unbay inaga ahayd inaan tusamahane ma iga ahayn wallahi markii anigu aan soo dhigay xumay gabadhaas oo mataqaanaa ceebaheeda faafi ma ahayn صح qof basi wuxuu arkaa markii inuu sidaa wax u arkay xoogaha isagana culays badan la saaray pressure badan la saaray laga adkaaday taasna uu miciin biday laakiin insha Allah si kastee tahay raalli ahow iyo raalli gelin meel loo dhaafa ma jirto qof inta laga dilo laba qof isdisho yaa la iska raalli geliyaa laga wada hadlaa lagana xaaltama marka xaal guud ayuu bixiyay khadar inagana waan la bixinaynaa inta ka xumaatay aad baan uga xumahay cimaamad hal igu tuuro wiil Soomaaliyeed baan ahay bulshada ay qabsatayna waxa weeye bulshadii Soomaaliyeed baa ay qabsatay waxaana ii sheegatay waxaana iga khaladkana iga qabatay qofka la jecel yahay waan runtii la qabsadaa la celiyaa lala hadlaa lana caayaa waan qiran waa sax wallahi waa lagu jecel yahay waayo haddaan lagu jeclayn laguma caayeen laguma xanteen macnaha laguma ii sheegeen canaanteen waa ujeedaa adiga waa fahantay in lagu maartay lagu jecel yahay marka عاد كده من هذه لو جعلت ده ولا قام مثلا سوا لو ما قايلين قف كل جعلي ولا عنانتا نيو حجرنا ما شاء الله يا تاس خلت كينا وان قابتي إن شاء الله تبدأ من أولي عميسو إن شاء الله هالكاس أنا وجود بدون عدي إلهي إنه حلا يقرأ هذا قف بنا أنك وحوي إلهي بخلدمي وخلدما وحز وحكة بدن بال ذكر حمرة وحوناتي بان أنا كل إصلاحها لكن دي مركز مسكح ذا وحكوتي لي وحوناتي لكن دنكي خلدنا بي مسكح ذا إيه قامسي وصح قفك بني آدم كوحا كحرير نفتيس الشيطان با كحرير شيطان كنا مروال بميل صحن كوما أقلا وحوربا دنك خلدن إنا آدد marka sheedaan ayaa ku xiriiro naf iyo sheedaanna way ahaadeen marka cudurdaar maaragtay raali gelin ka weyn ma jira ila taani waa la siiyay qadar run ahaantiina waxa weeye waxaan aad ugu xumahay wax sumcadeeda hoos u dhigay wax sharafteeda hoos u dhigay dadnimadeeda hoos u dhigay dhammaan inta bulshada ay taqaanay Soomaaliyeedna aysan igu taageereyn waan ka xumahay runtii ما هذا اللي قبله وكتاجرنا سيدا ذي والنوتة هاي أديجي فاميل كاجن اسكو كام مارتي اسكو مد باد إنوتهين مهمته جود وأدينك فرحدين هدي أدينك نيجيرين ده فرحدين أنا ده إنما ربطين صح مركب وحاربنا دوني إنه فرحدين وإذا جركين وإذا نلاشين صح إن بدأت كلا بقف اسكو دعان وين كلا تجان حين كي ولا كلا فجان كرا إنك ولا كلا تيكرا ولا سفور كرا ولا إسلجوي كرا marka muhiimadu waxay tahay waqtiga la isla joogo in farxad la isku la joogo wixii xumaan oo dhaco mid madow ana dib banaanka ay soo bixin taas un baa ceeba marka tiina de hadda in loo gudbaan filaya insha Allah aad baan uga xumahay mana dhici doonto insha Allah waxaasi wax la mid ah dib bayna idin la wadaago waxaasi wax la mid ah inay dibtan u dhacdo insha Allah gabadha aniga xaskayga ama xilhaygana wax jeclaa inaan wanaajiyo haddii ilaahayna garansiyo inta ilaahay garansiyo haddii ay dhacdo inaan waxaan u dadaalayaa u rafan doonaa u ordi doonaa ilaahay idinki in aan intii wixii wanaagii hore aan sameyn jiray mid ka sii sareeyo inaan sameeyo hadda ii suurto weynada fillahi alxamdu hadda ii suura gashanada insha Allah waa u soo doobanahay maya insha Allah way ku suuroobaysaa anagana waan ku duceynaynaa imaamad kuma tuurayna laakiin waan ku duceynaynaa insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala reerkaas shaydaanka u kala dhexgalay ha isku soo celiyo ilaahay farxadoodii dib ha ugu maartay ha ugu soo dhiso ilaahay ha ka dhigo qoys muslim ah oo maartay Soomaaliyeed oo jira oo lagu hirto oo lagu haydo oo lagu harsado ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka dhigo oo farxad hadii cid idinku dhex jirto ay jirtana ilaahay inuu idinka dhex saaro shaydaanka idinku dhex jirin ilaahay idinka dhex saaro waa idinku duceynaynaa dhamaanteen waxaan rajaynayaa asxaabtiina iyo asxaabteeda idinkana inay idin duceyn doonaan insha Allah marna waxaan aaminsanahay xaaskayga fahimo aan jecelahay inaan waxa weeye wax dhibaato ah oo dambe axkayga iska soo gaareen baan rajaynayaa dhan walba dhankaas ay ahaataba insha Allah waxaan leeyahay insha Allah washana wanaag inaan ku dhameeyaan jecelahay hadii ilaahay ii suurta geliyo laakiin waxaan fiidiyogan u duubayaa oo ku cadeynaya qof bini'aadanka inuu khalad sameeyo oo qaldamo oo san malaa'ig ahayn oo san ilaahay khalad aan sameeyna oo san mataqaanaa oo san marnaba intuu nool yahay sankiisa nafka baxays oo khalad sameeynayo okay way nagu filan tahay ayaan filayaa intaas raali gelin iyo muuqaalkaaga aan sii daawano
marka asxaabtii igu xiran oo muuqaalka hore kasoo falcelisay idinkana sida quruxda badan ugu soo falceliseen kun iyo kow jeer waad ku mahadsantihiin si dareenkiina u muujiseen aad iyo aad ayaa idinkaga mahadcelinayaa sida u jeceshihiin inuu dhisnaado qoys maaragtay Soomaaliyeed dhammaanteedna taas waan jecelnahay waxaanan rajaynaynaa iyagana inay isku soo laaban doonaan khadar saaxiib talada lagu siiyey waad qaadatay xalana waxaan filayaa halkan waxaan ka iri muuqaalada meesha ku jiro waa qurux badno inaad ka saarta ayaa fiican adigana waad ka saartay waad ku mahadsantahay kun iyo kow jeer fahiima adigana insha Allah wixii khaladaada oo xagaaga ka jiro dee qofku ceebka salin maaha runta markaa isku sheegno xagaaga adigana wax badanaa jiro oo anagana aan dareemayno khadar waan kaaga heelanay dee raganimaan dusha uga fuulnay adiga naftirkaaga waxyaabaha khaldan inaad iska saxid baan rajeynaynaa dib aa iskugu laabatid ayagoo dadkuna aysan kula hadlin adigana sidii khadar looga maaragtay loogu duulay aan loogu soo duulin adigana inaad wax badan toosin doonto ayaan rajeynaynaa marka muuqaalkii intaas ayaan kusoo koobaynaa waxaana rajeynayaa asxaabtii ugu xiran ee xalay kasoo falcelisay dareenkana muujisay in sida aan u raali noqday idinkana aad u raali noqotaan waxaad codsateen muuqaalkii aan ka xumaanay in meesha laga saaro khadarna uu ka saaro marka raaligelinna uu inoo soo raaciyay marka waana ka raalinahay nafii shaydaan ayay ka ahaadeen wixii xumaan oo dhacay wixii la saxayna dee Allah subxaanahu wa tacaala xagiisa ka ahaadeen wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh